ujeedadiisa ugu weynay waxay ahayd maanta isagoo sanadka ku dhici jiray in aynu yara ballaadhino fikraddaas oo ka timi wasiirka wasaaradda waxbarashada in bulshada reer Somaliland iyo deeq-bixiyayaasha caalamiga ah aynu la wadaagno halka ay marayso waxbarashada Somaliland gebi ahaanba. shirkii sanadlaha ahaa ee hore uu kaga duwan yahay oo isagu ujeedadiisu ahaan jirtay inay xisaabtamaan doomarrada lacagta bixiya wasaaradda maaliyadda oo bajetka waxbarashada qayb weyn naga taageerta iyo wasaaraddu wixii qabsoomay sanadka wixii aan qabsoomin iyo challengeska ama caqabadaha ina hortaagan ee ay tahay inaynu la xalino. isla ujeedadu waa tii laakiin wuxuu baa lagu soo kordhiyey shirka in la yara ballaariyo oo midi gale ama baran ilaa iyo lawyacaado laga soo wada qayb galo oo la ogaado halka ay waxbarashada Somaliland maanta ay marayso. waxa aynu soo bandhigi doonaa haddii ay ka dhigo labada cisho ee soo socda ama maanta kelinka toddoba ka bilaabmaya waxbarashada Somaliland halkii ay ka timi dabcan waxay ka timi geed hoostii iyadoo lagu fadhiisto gaasida caanaboolaha kartoonana wax lagu qoro. maanta halkay maraysaa waxay maraysaa qowlkaa quruxda badan ee aynu aragno intaasoo qurxisay waa tusaale ah ee maanta qalin jibinaysa. halkaynu ku soconnaa waxaynu ku soconnaa inaynu helo iskuullo iyo arday tayo leh kana jawaabta baahida marketka shaqo ee Somaliland qabo ugu horeyn iyo caalamkaba wixii ay ka tari karaan iyo wixii ay shaqooyin keeni karaan aqoon-yahanada ay reer Somaliland soo saareen. maanta iyo berri iyo maalinta ku xigta waxa aanu leenahay qorshayaal lagu falanqaynayo waxbarashada Somaliland halkii ay ka timi halkay maanta joogto iyo halkay u socoto. taasna insha Allah haddii ay ka dhigo xusulka ka soo baxa waan idinla wadaagi doonaa. waxaan ku faraxsanahay in maanta uu inoo marfuucayo shir ahmiyad weyn u leh qarankan shirka horumarinta waxbarashada qaranka. waxaan jecelahay inaan xuso in dowladaha hoose ee dalku ay qayb ka yihiin horumarinta waxbarashada waxaanay maamulaan qayb ka mid ah waxbarashada aasaasiga ah. mustaqbalka dhowna dowladaha hoose waxay doonayaan inay la wareegaan dhammaan 100% waxbarashada aasaasiga ah ee degmooyinka. dowladaha hoose waxay runtii geliyaan lacag fara badan horumarinta waxbarashada aasaasiga ah. waxaana shalay laga yaabaa inay la socoteen iyadoo la kala seexanayo heshiiskii maamul daadejinta ee wasaaradaha caafimaadka iyo waxbarashada. lacag ilaa 5 milyan ku dhow bay degmooyinku geliyaan oo dowladaha hoose ay geliyaan horumarinta waxbarashada aasaasiga ah. waxaana ka go-an dowladaha hoose inay lacagtaasi kordhiyaan. dowladaha hoose waxay u diyaargaroobayaan si dhammaystiran inay ula wareegaan sida xeer ku dhigayo inay iyagu markaasi waajibka xeer ku saareen gutaan oo waxbarashada aasaasiga ah iyagu ay markaa kala wareegaan wasaaradda waxbarashada. wasaaradda waxbarashadu waxay kala shaqaynaysaa dowladaha hoose inay dowladaha hoose u diyaargaroobaan awood ahaan aqoon ahaan iyo qorshe ahaanba inay waayo lama rabo in si degdega oo markaasi khasaare ina gaadhsiisa in waxbarashadii aasaasiga ahayd ee wasaaradda waxbarashadu gacanta ay ku haysay ee si degdega oo aan laga fiirsan loo wareejiyo si aayara ayaa kulba degmo ama tiro degmooyin loogu tijaabinayaa ilaa marka dambe degmooyinka oo dhan markaa waxbarashada aasaasiga ay loo wareegaan. So on behalf of these partners, I take this opportunity to thank the Ministry of Education for organizing this wonderful event, which is named National Education Development Conference.
We also congratulate, again, on behalf of the partners, we congratulate the ministry for the successful completion of the 2017 to 2021 sector strategic plan, education sector strategic plan, which has been concluded in last December. We, as education partners, recognize and appreciate the ministry's effort in providing access to equitable and quality universal education for all children. The ministry's commitment, the commitment from the ministry to prepare all the learners to become lifelong learners equipped with the skills, knowledge, and attitude is indeed commendable. This commitment has encouraged all of us, the development partners, the donors, to continue supporting the Ministry of Education through providing and ensuring that we provide both technical and resources for the delivery of education for the children in Somaliland. As the Global Partnership for Education Secretariat, country team lead for Somaliland, my name is Morten Sigsgaard. Very pleased to be here today. Several members of the Global Partnership have contributed to the success of the Somaliland National College of Education. The land for this teacher training college was provided by the government, which also contributed to the design of the college. The college was initially established with 10 classrooms, an administrative block, fencing, funded by the European Union and by the Global Partnership for Education, together with UNICEF and Save the Children, implementing. The college was then furnished and equipped using funds from GPE. And this wonderful college is now continuing to expand with a block for female dormitories to host 96 female teacher trainees. There's now being built a canteen, a multi-purpose dining hall, a library, a laboratory. There's even an underwater water reservoir. And all of this is funded by GPE through Save the Children. The college today offers both in-service and pre-service teacher training for primary grade teachers, and is also starting to offer early childhood teaching training. Actually, a total of 1,169 teachers, of which no less than 438 are women, have been trained to date. And the training of another 1,235 teachers, of which 546 are women, is ongoing. I'm pleased to say that this training has been funded by several partners, the European Union, through CARE and Save the Children, Education Cannot Wait, through UNICEF, and GPE through Save the Children. waxaan doonayaa inaan u hambaliyeeyo wasaaradda waxbarashada saaxiibkayga wasiirka Axmed Tooro iyo tiimkiisa oo soo qabanqaabiyey shirweynaha qaranka waxbarashada Soomaaliya. Mararkii hore shirarka noocan oo kale wuxuu ku koobnaa dib u eegidda waxbarashada, laakiin hadda saan dareemayo waa la bilaabiyey. Maantana waxaan ka hadlaynaa tayada waxbarashada. Waa arrin oo muhiim ah. Taasna waxay ku tusinaysaa inaan ka gudubnay sidii loo balaadhin lahaa access oo hadda quality of education aan u gudubno. Taas ayadana wasaaradda iyo tiimka aan ugu hambalyeynaya. Anigu waqtigan ma qaadanayo, waxaan doonayaa inaan ii sheego anuu matalaya midowga Yurub. Midowga Yurub wali way ka go'an tahay inay waxbarashada Somaliland horey loo wado. Hadda sanadkan 2022
3 sano oo soo socoto maxaan qorsheynaynaa inaan lacag ilaa 10 milyan oo euro ah aan gelino waxbarashada Soomaaliya. waxaan u mahadnaqayaa cid kastoo qayb ka ah hay'adaha caalamiga iyo bartenders-ka saaxiibada la wasaaradda waxbarashada qaybta ka ah inay laga qayb qaataan oo garab istaagaan sidii aan u gaari lahayn doorkii iyo siyaasadii 5 sano soo dhaafnay ee waxbarashada ahayd guulaha maanta ay sektorka waxbarashada Soomaaliya gaareen qayb waxaa ka ah dhammaan hay'adaha caalamiga qayb waxaa ka ah bartenders-ka kale iyo waaxyaha kale saaxiibada kale inay la shaqeeyeen 5 sano hadday noqoto dhaqaale ahaan hadday noqoto farsamo ahaan hadday noqoto xirfad ahaan waxaan leeyahay iyaga sacabka ay u tumo wasaaradda waxbarashada iyo saynisku waxay mas-uul ka tahay dhammaan iyo socodka waxbarashada dalka waxay ilaalinaysaa qof kastoo muwaadini oo reer Soomaaliya weerarka muqdisa waxbarasho ee dastuuriga ah ee dastuurku siiyey hadduu noqdo arday KG gelaya hadduu noqdo arday primary intermediate and secondary iyo hadduu noqdo jaamacadeed sidoo kale wasaaradda waxay qayb ka qaadataa mas-uuliyadeeda qaybta loo yaqaano formal education oo inay kor u soo qaado dadka waxbarashada ka habsaamay oo dadka waaweyn oo qaar lagu dhigo hadday noqoto xarumaha ciidamada oo laftooda qayb weyn ka ah inay aqoontooda waxbarasho hadday noqoto mashruuca teefadka ama farsamada gacanta oo xarumaha macaamiista ku xidhan yihiin lagu soo baro farsamo xirfadeed si marka la soo daayo ay suuqa u soo galaan iyadoo xirfadle waxaad dareemi karaysaa mas-uuliyadda weyn saad la socotaan waxaa meel walba iminka galay technology-ga sidiiba tooliska ama qalabka loo adeegsado oo runaantii waxbarashaduna ay tahay meelaha ugu horeysa ee maaragtay wax laga qaban karo dhowr dhinaca laga faa'iidaysan karaa technology-ga marka koowaad technology-gu sideeda waa wax la barto weeye qofku uu ku baran kara heerar kala duwan qofkii doonaya xirfad noqotaana sii wadan karaa ka kalena inay noloshiisa ay maaragtay kor u qaado oo waxbarasho qofka loo baahan yahay wax kaloo iyaduna ay noqon kartaa tools lagu gudbiyo waxyaabaha kale dadka ardayda la barayo hadday noqoto in laga dhigo classeski hadday noqoto wixii lagu gudbinayey oo ay noqoto maaragtay ama taabli loo adeegsado ama loo adeegsado wax walba kasta lagu gudbiyaduna waa waxa weeye waa qayb ka mida tool bay noqon kartaa waxaa kale noqon kartaa technology wax fududeeya xiriirka ka dhexeeya macalinka iyo ardayga ka dhexeeya macalinka iyo maamulka waxaa laga jeeda wasaaradda ama maamulka iskuulka ama hay-ad kasta institution kaloo bixiya waxbarasho technology waxay fududeyn kartaa in ay kor u qaado xiriir ka dhexeeya wax kaloo iyaduna ay jirtay waan ku arkayay inka laftigiisa governance-ga marka laga hadlayo education governance maamulka waxa weeye waxbarashada waxa ugu horeeya loo adeegsan karaa waa technology weeye hadday noqoto in ardayga gradekiisi lala socdo maaragtay performancekiisi ama waxbarashada halkuu ka socdo mar walba loo fududaynaysaa waxay weliba intaa leedahay wasaaradduna ku ammaanantooda qayb ay qaaday wasaaradda waxbarashada inay qaybiyeen beer dhexdaasa taabnadiyo ay ku tala galeen meelaha fogfog oo runaantii ahaa mashruuc in lagu hamaliyo u baahan beaqaynu baan doonayna inaynu fududaynana ay maaragtay noqonayso marka horumar haddii la sheegayo waxa loo baahay waxbarashada wax badan laga qabto dadku waxa isku badan waxa la yidhaa in bulshada la bedelo iyo bulshada loo hormariyo wax ka hormaraystaana waxa weeye waa waxbarashadeedii sidaa wayadahan kolley shirka u soo jeedin lahaa in heerarka kala duwan dhammaan lagu daro manhajka iyo qaabka maamulka iyo qaababka iyo tooliska loo adeegsada waxbarashada in technology-ga lagu daro oo ay noqoto ta ugu horeysa Soomaaliland waxay leedahay higsi horumar oo leedahay higsiga 2030 higsigaasi wuxuu ku leeyahay 3 tiir oo waaweyn ama 3 ujeedo kow waa in la gaaro deganaansho labo waa in la helo nolol wanaagsan inta saddexaad waa in waddankeenu waddan ku dhaqma nidaamka dimuqraadiga saddexdaa marka ay taba
aasaas weyn oo tacliinta waxbarashada midna lagama saari karo waxbarashada marka waxbarashadu horta waa aasaaska iyo udhaxaadka iyo halka ay muxuu ahaa ku turmayso ee horumarkeeda qaranka oo ay doonayno in ay si wada jira aynu ugu eegno shantii sane ugu dambeeyey halka aynu ka nimi iyo wixii inoo qabsoomay iyo wixii inoo qabsoomi waayey iyo sababtay inoogu qabsoomayn iyo sababtay u qabsoomi waayeen maanta halkaynu joogno isla markaana aynu go'aansanno shanta sannadood soo socda halkaynu u guuraynaa oo geedideedu halku daasan yahay waxaynu doonaynaa inaynu ka jawaabno saddexdaas su'aalood xaggaynu ka nimi maanta xaggaynu taagannahay xaggee baynu u socon doonaa where we come from and where we are today and where we want to go. runtii sharaf weyn iyo farxad ah inaan ka soo qayb galo shirka horumarinta qaranka ee waxbarashada Somaliland horumarinta waxbarashada Somaliland ee maanta halkan ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada oo runtii shir aad iyo aad muhiim u ah cid walba ama institution kasto caalamka jira ama ahaado mid dowladeed ama ahaado mid maaragtay gaar loo leeyahay ama mid hay'adaha caalamiga jimciyaha qurumaha iyo maaragtay international joog ahaado cid walba waxay samaysaa qorshay samaysataa adduunyadu reerna qorshahaan ma dego marka aad iyo aad u baahan baleynaya wasaaradda waxbarashada runtii inay diyaarisay shirweynahan qaran ee waxbarashada Somaliland oo lagu lafguri doono wixii qabsoomay wixii naga qabiyaa iyo halkaynu maarta gaari karno si loo tageyn lahaa tacliinta adduunyadu maanta waxay ku dhisan tahay oo waddan qaarnada kala horan lahayn siday tacliintu u kala qiimaan tahay ama sida loo tababaro carruurta marka laga soo bilaabo ilaa dugsi hoose ilaa dugsi sare sidaa darteed waxaan leeyahay saacadda laga galo shaqii idiin sugani muddo 3 maalmood soo qorsheeyay wasaaradda waa idiin furan yahay waxaan jecelahay aad uga kala faa'iidaysto waqti la siiyo waxay muddaa inaan sawir u lahayn shirarka oo waqti inaan siiyo laakiinse mar kastoo la isku yimaado waa la kala faa'iidaysanaya sababta qof walba liin u haystaa oo fiilku ka shaqeeya fiilka kale ay isku xooyihiin qaranka qaranku yaalaan inuu ogaado hortooda halka waxbaranayaan cid walba laga looga baahan haddii caafimaad laga shaqeynayo haddii biyo laga shaqeynayo haddii waxbarasho laga shaqeynayo mar kastaba hogaas isku imaatada caynka leh waxaa loo faa'iideynayaa inta dhegaysanaysa ee mujtamaca Somaliland iyo inta joogtaaba afkaarta hadda waxaweye waxba qof walba oo halkay mudday ugu furantay maadaama muddo 3 saac soconayo wixii ku dari karo inta wasaarad soo diyaarisay mooyaane waxay u diyaariyeen inay dhegaystaan afkaarta aqoon-yahanada Somaliland culimadana cid walbana inay ku dari karaan ku daraan talooyinka ay ka qaataan aad iyo aad bay u mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi